waxaan halkan ka soo jeedinaynaa dareenkeena ku aadan ummadda Soomaaliyeed la qaybsanaynaa dhacdadii foosha xumayd ee magaalada Laascaano ka dhacday ee lagu xasuuqay lagu barakiciyey oo lagu masaafuriyey dalkooda loogu masaafuriyey shacabka Soomaaliyeed ee danyarta ahaa muddo badan ku noolaa zoonkaas marka waxaan leenahay waa wax fool xun oo aad u fool xun oo ceeb ah oo ka soo horjeeda bini'aadanimada wixii ka dhacay magaalada Laascaano waxay ka soo horjeedaa bini'aadanimada ka soo horjeedaa waxay ka soo horjeedaa islaamnimada ka soo horjeedaa waxay ka soo horjeedaa Soomaalinimada ka soo horjeedaa waa xaajo ugub ah Soomaalidu waxay tiraahdaa ugub ma aha waa curad tani waa ugub taariikhda ummadda Soomaaliyeed min maalinkii ay soo bilaabatay ilaa maalinkan maanta ah kama dhicin dhacdo noocan ah ma dhicin waa dhacdaa in dagaal uu dhex maro waa dhacdaa in mataqaanaa la kala ma garanaysaa wax la kala aargoosto waxyaabo badan oo dagaal mataqaanaa ahla waa dhaceen wax 24/7 dhaca laakiin dhacdada noocan u gaarka ah ee la leeyahay shacabka meeshan degan asalkooda waxay ka soo jeedaan magaalo Heblo iyo gobol Heblo ay ka soo jeedaan kuma noolaan karaan gobolkan iyo deegaankan oo Soomaali ka wada ah geographically Soomaali wada ah kuma noolaan karaan because ajnabi bay ka yihiin in qof Soomaali ah intuu qof Soomaali soo qabto oo yiraahdo ajnabi baa tahay meeshan anigu ku noolaa kuma noolaan kartid waa dhacdo ugub ah waa waxaan hore u dhicin waa wax nasiib darro ah waa taariikh xun waxay ahayd black history maalin madow bay ahayd maalinta ummadaasi nooca loola dhaqmay ciddii samaysay ayay u gaar tahay Soomaali oo dhan ma aha shacabka reer Laascaano ku noolna ma aha mid ayagu ay godob u yihiin oo godob galeen looma arkayo ummadda Soomaaliyeed way u ogtahay laakiin maamulka meesha ka jira ayaa godobtaas galay ayadayna maalin madow u tahay ayagana lagu la xisaabtamaya fi mustaqbal insha Allah biidhnillaahi alkariim waa ka xunnahay shacabka gobolada waqooyi ku nool oo runtii aan aaminsanahay inay shacab nabadeed oo Soomaaliyeed oo dhaqan wanaagsan leh inay asal yihiin wanaagooda iyo sharafkooda iyo ciidadooda meel ay joogaanba shanta Soomaaliyeed meel ay ka joogaanba waa lagu karaamaynayaa mar walba kuwa halkan jooga iyo kuwa meelaha kale joogaba kula karaamay agteena ku leeyihiin loomana qabanaya ama looma arkaayo ama looma eedeynayo ama looma aanaynayo taariikh madowna kuma noqonayso shacabka gobolada waqooyi ku nool meel ay ka joogaanba magaalada kasoo ka joogaanba dhacdadaasi looma aanaynayo loomana qabanayo laakiin waxa aanadeeda iyo eedeeda iyo ceebteeda iska leh cidda mas'uuliyadaasi samaysay oo dhaqankaas abuurtay ama askari la amr ha noqdo ama nin wax amr ha noqdo mas'uul ah taasay u gaartay gruubkaasay u gaar noqon